waqtigii wuxuu noqday hal bacad lagu lisay ilaahayna wuxuu leeyahay tafarraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan wa asudda faqraka wa ilaa tafcal mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka ilaahay baa le addoonkaygiiyo cibaadadayda iyo taacadayda iyo diinteeda wakhti u samee aniguna maaragtaan qalbiga ayaan kaaga buuxinayaa ghinan nafsi baahidaadana anigaa daboolaya baa ilaahay kaa yidhi wa ilaa tafcal haddaad sidaa yeeli weydo ood samayni weydo mala'tu yadaka shughlan walam asudda faqraka baa ilaahay yidhi 24 saaca mashquul baan kaa dhigay oo busy baan kaa dhigayaa baahidaadana ma daboolayna baa ilaahay yidhi albaabada faqriga laga dabooli maayo haddaan wakhtigeenna qaybinno saacadna aan u dayna kasbi xalaala saacadna masaajidda aan ku camirno oon aakhiradeenna ka fikirno oon diinteenna ku baranno oon diinteenna ka fikirno oon dhallinyarada walaalaheenna masaajidda ka maqan aan u murugoonno oon u tagno gacanta soo qabanoon masaajidda keenno saacadana aan ku camirno maaragtaanay reeraheenna iyo ubadkeenna aan siinno nolosheennu qiimo yeelanaysaa markaas tafaraq licibaadatii amla'u sadraka ghinan baa ilaahay yidhi laysa alghinaa can kahrati alcaradi walaakina alghinaa ghina nafsi buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ghinadu maahin xoolo badan iyo hanti badan oo la yeeshee waa ghina nafsi waa naftaada oo deeqtooda weeyaan ghinadu qalbiga oo ku xasila qalbiguna muxuu ku xasilayaa aladiina aamanuu watadma'inu quluubuhum bidikri illaah alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub baa ilaahay yidhi kuwa ilaahay rasuulka rumeeyey qulubtooda waxay ku xasilaysaa ilaahay taacadiisa alaa ilaahay baa la intabihuu baraarugoo dhegihiina fura qalbiga bini aadamku wax kaloo ku xasilaya male baa ilaahay yidhi ilaa ilaahay taacadiisa mooyaane salaada markaad tukatid qalbigaagu uu xasilayaa maskiidka markaad saacad fadhiisato qalbigaagu uu ku xasilayaa juz qur'aana haddaad tadabbur iyo tafakur aad ku akhrido qalbigaaga uu ku xasilayaa xalaqaat alcilmi haddaad fadhiisato culammada la fadhiisato oo diintaada aad wax ka barato qalbigaaga waa kuu xasilayaa xalaqata dacwa haddaad fadhiisato oo dadka walaalaha ee muslimiinta aad ku soo qaaddo jawlaad iyo ziyaaraad man cada mariidan aw zaara akhan lahu fi اllaah naadaahu munaadin bian tibta wataaba mamshaaka watabawa'ta min aljannati manzila qofka qof buka ilaahay dartii u buuqday ama qofay diinta islaamka walaala ku noqdeen ilaahay dartii u ziyaartay buu nebigu yidhi samada ayaa looga dhawaaqaa oo la yidhaahdaa waad wanaagsanaatay socodkaagaasna uu wanaagsanaaday jannadana manzil baa lagaaga diyaariyey baa lagu odhanayaa alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub qalbigan wax kale ku xasili maayo lacag ku xasili maayo dhoofna ku xasili maayo dad baa dhoofun ka fikiraya dhoofun bay ka haysataa dad baa tacliinu ka fikiraya tacliintan maadiga oo tacliintii diintoodana aan u arkayn in wax lagu cunayo qalbigaagu ku xasili maayo ashyaada iyo maadada ku badatee wuxuu qalbigu ku xasilayaa oo ilaahay macrifadiisa alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub aqim الsalaata lidikri salaaddii baa lagu leeyahy waxaad ku ogtaa ilaahay dikrigiisa waladikru اllaahi akbar ilaahay dikrigiisa ayaa weyn walaqad yasarna alqur'aana lidikri fahal min mudakir in huwa ilaa dikru lilcaalamiin fadakir inamaa anta mudakir qur-aankii waa dikr nebi maxamed waa mudakir salaaddii waa dikr inamaa jucila الsacyu بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله بالنبي عليه الصلاة والسلام سعيي مروة يدحدود الله سعينا يصفا يدقى حل تورنا يبو رسولك يدي يتم حيرة سشد حجيد تماها حيرنا يان انت بوحى الله قدلنا يهيب النبي والإلهي حسكي سين لقوه غاية العبادة والذكر ويان إن قلبي مر والبقون نقضه قلب إلهي جل وعلا مر والبحصوصا إلهي كتعلق صن في صلاتك صلاة دحديد إلهي كحسوسه أقل كاغ إلهي كحسوسه أبد كاغ إلهي كحسوسه مهرد هذا إلهي كحسوسه ورجل قلبه معلق بالمساجد تضبط حرك إلهي لوغو هرين دون مالنت حرك لو نجرين حرك الله مويانا وحا كميد أبو رسولك يدي نين مارك تاني مر والبا قلبيسو وكحسلوني نين مر والبا
qalbigiisu ku tacalluqsan yahay masaajidka ilaahay cabdullaahi bn rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay markaasay aragto way la oyday iyadiina markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa markaa bay tidhi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya ثuma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya anugu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi uma intaa kadibna nunaji aladiina اtaqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonaa baa ilaahay yidhi waan nabadgelin doonaa wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi dhabtuu ku jifaa innaka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur-aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeenni xisaabinaynaa oon meheradeennii ka fikiraynaa iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducada xasuusta nebiga ayaa yidhi akhriste bismi illaah allaahuma jannibna shayطaan allaahuma jannibna shayطaan wajannib shayطaana maa rasaqtana markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan besigaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi taasaa ii kala caddayn zuraarata ibni abi awfa raximahu llah taabici buu ahaa imaam almasjid buu ahaa salaat alfajarkii buu tujinayay dadka rakacaddii hore markuu ku furfurtay suuratu alfaatixa fاftataxa suurata almudathir markuu gaadha faidaa nuqira fi الnaaquur fadalika yowmun casiir clى alkaafiriina hayru yasiir halkaa markuu gaadhay khara calى alardi maqshiyan calayhi faxumila ilaa beytihi wamaata gurigiisii baa loo qaadoo loo xambaaray sidii buuna ku dhintay faidaa nuqira maalinta maalin baa iman doonta baa ilaahay leeyahay suurta aan afuufi doonno waa maalin culus baa ilaahay yidhi oo gaalada dushooda kuma fududo yowma albachi weeyaan aayaddaa markuu gaadhay dhulka ayuu ku dhacay daedna meydkiisiina gurigaa loo qaaday sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biاljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi xawraa baan ku yidhi xawraaye qasrigan ayaa ilaahay ugu talagalay waxay tihi nin quraysh ka dhashaa nin carab ka dhashaa loogu talagalay anigaa carabiya ma cid kalaa ha jilibka quraysheed buu ka soo jeedaa anigaaba qurayshiya ma cid kalaa ha ummadda muxamed buu ka mid yahay anigaa muxamede ma cid kalaa hawa cumar binu khadaab bay ku tidhi cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo darajadiisa khayru nnaasi buu ahaa bacda annebiyiina waalmursaliin ilaa abi bakr sidiiq mooyaane khalqiga kale ilaahay abuuray baa layidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abubakr sidiiqunbaa ka fadli badnaa kaasaa maskiidka nebiga soo galay wakhta saxar buu soo galay wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaane suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa markaasuu cumar istaago uu dhegaystay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almasduur ina cadaaba rabbika lawaaqic halkaa markuu maraya cumar dhulku ku dhacay faxamaluuhu ilaa beytihi gurigiisaa loo xambaaray 20 maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin qulubtooda ayaa noolaato jilcday innaga zamankeennan calooshaa laga shaqaynaya waa zaman albutuun butuun maxaan cunaa maxaan fuulaa maxaan qaataa halkeen galaa maxaan dhalaa halkeen tagaa xaggee wax ka cunaa waxa adiga laguma diran adiga waxaa lagu dirtay keliya cibaado calayna an nacbudahu kamaa amar wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad nin saalixiinta ka mid a lagu yidhi dalka intaad ka maqnayd ma ka warqabtaa waxa isbeddel dhacay maya kama warqabee ii sheega buu yidhi waxaa la yidhi qad halaa alcaysh noloshii baa noqotay haali
sicirkii bidaacadaha ayaa ziyaaday roodhidii way ziyaaday shaahii uu ziyaaday markaasuu yidhi anuu warkaa ma haya buu yidhi anuu warkaygu waxa weeyaan calaynaa an nacbudahu kamaa amar aniga waxaa layga rabaa keliya inaan u caabudo siduu isagu igu amray wa calayhi an yarsuqanaa kamaa wacad asagana waxaa laga rabaa inuu noo arsaaqo siduu isaguba noogu yaboohay razaaq waayo man huwa arazaaq allahu rabb alcaalamiin razaaq yarzuq alcaasi walaa yubaali caasigu arsaaqa umana aabba yeelo لك علي رزقك ولي عليك فريضة إن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك حديث القدس إلهي بالله هذا كان فرائض بانكو صاري أنا كان أرزاقات هذا وانا ساري بإلهي عبدي لك علي رزقك ولي عليك فريضة أنا جو وحن كركي صاري بإلهي لي أرزاقات هذه أنا أرزاقات هذا بلغ عليه هذا كان كركي وحن صاري فرائض واجبات بانكو سيئي ومعرفة إلهي وقوه الرئيس إن خالفتني في فريدتي لم أخالفك في رزقك هذه أذوق فرائد دي واجبات كي أتكتب إلهي كلية هي أنا أرزقك هاقوصا مايو كي إلهي عاصية هذه البختين يسكورن هذه حمين جرك كملة فريسان شقادة جوجين سين الله شو نقول لهي هذا عادة واحد لقى شيء لها مقالة النيروبي حافظة إسلي شن كنا وقف بقى إلهي حلي دقيه كلام نقد مركي إلهي عاصيين سيدنا الله شو نقول له هالبلي شيء أرجي وينسيي وانكو عاصني مقالك وينسيي وانكو عاصني عافماتك وينسيي وانكو عاصني دل يرمدي وينسيي وانكو عاصني رزقي وينسيي وانكو عاصني إبراهيم الأدهم رحمة الله عليه ayaa inan yar baa u yimid oo ka yidhi yaa sheekh ibraahim anigu macsiyo ma dayn karaya maxaan sameeyaa ii sheeg buu ka yidhi macsiyo ma dayn karayo cisyaan ma dayn karayo zina ma dayn karayo been ma dayn karayo khamri ma dayn karayo tumasho ma dayn karayo xaaraan ma dayn karayo maxaan sameeyaa wuxuu yidhi waxaad samaysay ma garanayo anugu ما قيل بانكور هذه يا أبو هذه لا يكون عصدا ديك ضدنا ساعة ما تجري بقول قيل كاس شيخ هذا أنت أوتك شيخ قرنا يا إلهي عاصي هذا كري وإذا نفط هذه مجرى أر مجرى لا مجرى ويا محن سمايا هذا يكون هلا بودي لكن صون نقمت بانكو قرنا معصية ما دين كريس ها ما دين كريون نفتي يا شيطان كيف هيك غالب نقضي هيك غالب نقضي نفتي إيو شيطان كي دل يرمدي ها هي محن سمايا وحوري ده عاصي إلهي لكن مد بانكورن عنقو صدق الرماد بانكورن إله هذا عاصينا يسوع أرزاق دنا دعونا أساقا كسية رزقي سدودا هكعنين بيها يا كسية الله هو ذا إلهي باكسية بريسك إلهي باكسية عنها إلهي باكسية عتك دعونا إلهي باكسية رزقي سأضاف مربى هذا تري عصيان مدين كريو ده رزقي سأودا ده ما حكون على عذاب وكيل ده سداي كولا نقطة بوجري إن هذا رزاق دي سنة أتكعنتو السكينة دي بعد وعاصره مثل بعد بانكو قدري بيقولي دول كانت كجوكتو السق عليه وقع دول كان ميل عن حين دون قال هل كان إلهي قصو عاصي بيقولي ما جرتا دول كوار دول عركونا وعر gudahan jooga iyo dibaddan jooga ma jirto dadkoo dhan gudahan bay joogaan mid baan maalin number telefoon kala hadlo numberka caadiga wuxuu yidhi iska goob yidhi sheekh lacag badan buu iga goosanayaaye war maxaa dhacayo wuxuu yidhi dibaddan joogaa buu yidhi dibadda markaasaan ku yidhi dibad iyo guda ma jiraane kulligeen gudahan ku wada jirnaa gudaha adduunka dhanba waa hal qol keliya halkaa qolka ilaahay baa iska leh war hadda soomaaliya ka wada imanay markaan ka soo tegayna dalkan معالم كلا لقى فرص سوق شيء مثل دول كي بوها عركون ما هو صعود شنو تومس ساعة عندي أرى الله سعونه شنو تومس ساعة نان ستوب سمادنا سلام بدو شيء ده أطالع دول كنا سلام بدو أوست ويالله
هل قل وين الديود قل كأياس كله إلهي إن لقوا عابدا لقوا تلقلين إن لقوا عاصي لقوا ما تلقلين حرر كان يسقى عليه هدات العصيان كي سمد دين كريو وقكع دول كلا كو عاصي ودول كلا دون ده ما دعي كرتو ما جرتو ده هذا دول كي سيكو جوجا سيداد وقع عاصين كرتابو كيدي تصدق حد ما كوكو دريه مال وسن إلهي وسن كوكو أركين كله ما هلكا كو عاصي ما جرتا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار هبين مالين افتين مدو سريسو موجي عليم بذات الصدور يعلم السر وأخفى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سميع بصير ويان مخلوق ودن هدي أي ميلس ودا تاغان أي بريان وأفكوغ إلهي كبريان ومدول بباهيدي سيلاهي وشيكتو مدول بإلهي سودكي سوا مغليا باهيدي سن إلهي ندبولو أودي كرا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا عبادي يا عبادي الضمه يجيو بإلهين ليهي يا عبادي سبحان الله نحريس يوسف الأرسنة قل يا عبادي الذين أسرفوا كوي مسرفين تاها إيه نفتو دا كوحد قدبي إيه أفر الله باتك الساعة معصيتي قفلت كجري هدي أقوير يا عبادي كوا صالحين تتكرينا محاضو ملين مقعوق يري لها فرعون وأوجيها إنه قال يهي إنه قال لما كل من يوجيها إنه أهل النار يهي وأوجيها أي موسى مركو أدري كلها فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذه فرعون ولايه موسى هذا اللي يرد بعسا كل هذا لقى يا بينه وانتوبوا إلهينا كبقوا صون نقضي وفرعون أولي الذي قال أنا ربكم الأعلى الذي قال لبني إسرائيل أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان فرعون وكبروق وقو هذا الله كو هلا يي هدي مركي موسى الله دري إلهي موسى كل يهي هذا الجلع سنكون هذا تحود الدبرية كوي مسرفين تاها قل يا عبادي الذين أسرفوا سبب النزول كي يقول عقوش إمام أحمد وحشي نكي قاتل حمزة نكي حمزة دلي مكة مركو النبي صلى عليه الصلاة والسلام أيو تبي وداوي وحشي هذا كاب حسد الله يقول وكادونتي كذبتك ويرى حيبتها لغو سو غاري سغو دمعسن با انو كسو طلابه جزيره العرب وارض الحبشه وسو غدبو مركا وحشي ها رسولك الله بان كا ويديو كو يريا سبحان الله انيكا ما انو حمزه دلي وأذيركي دلي أو مشركة أو زنيستي صوت دين دين شيء يسمع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يدو شريعة محمد يدو أي شيء يسو قفك إلهي غيرك عابدا إن نف بني آذننا قويا إيه الزنيسا إن عذابك الله بالله بايو إن تاب أني قوان كل عيه بل أرض محمد يسوي دي يبود الرخصة بوس أن دين الإسلام كسوق لما الله يهيا مركب الصحابة دي صون نقدين رسول كان مكو قوي مادين عليه الصلاة والسلام مركز النبي أقري إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما آياته قرآن كمركي وحشي اللي كر أخرينا وحول إلا من تاب وشردك كوبات وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا شروط سوي بدنته بالله أنكم مبوحين كريم بويدي شروط بدن بلس دبر دقة ماشي ويسون نقدر هذا آيات قرآن النبي صلى الله عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله إلهي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مرقي آيات اللي قد الأخرين وحيري هذا أرى بعد مشيئة الله إلهي كود دونا ماشي كود جرتي بالله أنك إلهي الدنب جايينو دافع ما بدوني بويري هاي النسوق عجيب وأني كأني كنا هذا محمد يا أبو بكر يا عمر يا ماها حسن يا حسين ماها وأيو ووحشي وقاتل حمزة نجي حمزة دلي ويان مال انت النبي قادر كيلا دلي عليه الصلاة والسلام أنصار ميت كوجا الروسنيين النبي قال لي واكن أدير كان ميت كيسي وهو أركي هالكاس على قد اللاعية حمزة على شيء زين لك لد اللاعية أيام مدغريها أوسكينا بنان كان لقول شيرية كريه سي بيركي سنة عند لقول دادي مركز النبي أرجع جحي عليه الصلاة والسلام مركز الصحابة كويري ولا شيء سفيا صاصعته كأرجع جحي سي هري اسكو عليهم مركو ضوء أبو رسول كويري قيسين توطوري لأن للما كدادة الرسول كنا مركز سويري يا عمي أدركي ما مغلى يا أو شهيد خلاص وحوري تضبعات قريشة أنا وين أنكو أرجو أبو رسول كويري مركبا القرآن كاسودك وحيقة حي سودك تعايد الشيء فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين بالنبي قال له يدي هذا أرجو سنيسد وهذا أرجع أو أرجو ديسد بإلهي كويري ده مدون باللقاء دي لا أدوكنا مدون دشوا بإلهي كويري هذا صبرتين هي صابرين تصبر كابو خير بدن بإلهي كيري يعني حماسة إنكم قادم بلليه ليتخذ منكم شهداء أنك ضمعني بإلهي قاركين إن دين تقول شهيدان أدرك وحكم النقصان وشهيد ويان وشهيد أنك الدورين بإلهي كويري أديك وحبك من ناقص من وحبك وزيادة لقى مرة بإني تولني ماذا يقبيالد أيكو قاده هذا دو أرجودي سنة دمدون باللقاء دي لمدون دشوا هذا صبرتنا بإلهي يري صابرين تصبر كأو خير بدن بإلهي كويري وحمزة نكي دلي ويا نك ونبي آياتها قرآن كقول بايدو صغر أيو آيات دي قدام بيسو نبي يقول صغر وحي هيد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آيات القرآن كمرك الله كان يلقوا آخر يدوشيسا أما هذا فنعم تنا نقبل بيودي مركزا مكلا سوق لي مركبا النبي الله هركان عليه الصلاة والسلام مركز النبي قرتي سكوا شهاتي مركب النبي يقول بل أذرك حمزة صاد مالين تودي شنو كشيكي مركو كشيكي يبل المكدادة رسولك عليه الصلاة والسلام مركز سويدي وهاجا وحشي إلهي با هداية كولا دونا كسو هديه مركا وجيجو كأركا أدرك بان حسوسنا ياي مركا حلقات كصدا صحابة ده أن روح برايو هذا هو حاجة دم يقفل يسويري عنده سهدي أركان وحي حسوسنا ين أدركي عنده سويني أركت مجعلين قلبي سن النار إنه قال مجعلين هذا طبيعة الأنبياء سيدا عنده سو وحشي إني أركان أيسن أربين أدركي بكو حسوسنا يا كذلك قلبك محمد مربين إنه وحشي نار وكدعو فإلهي هنو توبت كأنه سقى إن أرزاقيا هذا ندتك إلهي وعاصنا يا المانت وحنا سنة سقى النسيي
هذا نوع عاصينا يا عبادي با إلهي ليهي كيني هوري كينا دنبي جيني إنسجين كيني نيقو الله كعبسي قبضن هذا سيدي سيقا عبستان با إلهي ليهي ملكي جيجا وحبكم الزيادة نيسان ملكي جيجا وحبكم الزيادة نيسان إبليس عليه اللعنة هذا ذي عاصدان با إلهي على أفجر قلب رجل واحد منكم علماء الحديث قالوا يكون شيئا وإبليس عليه اللعنة سيد إبليس أود إلهي إسقو يقانو وأمرك إلهي أديدي وإلهي أعاصي هذا إلهي وضع عاصدان بإلهي نليهي ملكي جيجا يأود يدو حبك مد ما ينبى إلهي إلهي إنك أبهان لا تنفعه الطاعة ولا تضره معصية ومناجات كي نبينا عليه الصلاة والسلام مركو إلهي إلا مناجون يو وكدو عيسان جري وحاكم دهيد يا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرة هب لي ما لا ينقصك واغفر لي ما لا يضرك إنك أنت الوهاب يا من لا تضره الذنوب يا من لا تضره الذنوب كي أي ذنوبتب أيسن وحبك دمينو مغفرة الدومها ودن بدافينا وحبا أيسن كدمينو ومناجات مركو النبي يقول إلا مناجون يو دعين قابل كو دعي سنجري مركا طاعتنا إلهي وحبا ومزيادس معصيتنا حبا كمان نقصت من عمل صالحا فلنفسه من جاهد فإنما يجاهد لنفسه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من شكر فإنما يشكر لنفسه وما تنفقوا من خير فلأنفسكم بالقرآن كوفيرسو نفت هذا هذا هنونتنا نفت هذا هنونتي من تزكى فإنما يتزكى لنفسه نيجا نفتي سحمانتا كالطهرة ملاها حنحن النفط أفعنين كإلالية مساجد يا خير كلي ماذا نفتيسا الدنبيق نفتيسا كقميرا طاعتي عبادتي يا مناجاتك حلقاتك كقميرا نفتيسو طهري با إلهي يدي من عمل صالحا فلنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه كي شكر يا إلهي نفتيسو شكر يا إلهي حبو مقبنا مركا إلهي تبارك وتعالى إنك إلهي أباها nolosha adduunyada maxaa markaa laynoo siiyey inaad ilaahay aad kula baayac mushtaraysa lagu siiyey araggu waa nicmad maqalku waa nicmad waqtigu waa nicmad islaamnimadu waa nicmad bini aadantinimadu waa nicmad caafimaadku waa nicmad arsaaqadu waa nicmad habeenku waa nicmad maalintu waa nicmad dhallinyarnimadu waa nicmad caqligu waa nicmad caafimaadku waa nicmad لحياتك لو قد ما يسترى ونعمة أرزاقته ونعمة أمنك ونعمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عيسى ابن مريم عليه السلام أيا أركنن لبدا قعمد هلكا كوغوان لبدا لغودنا هلكا كوغوان إن دلأوا وحبنا عن أركين جركي سنة يكون على برس أو وضعت وكدو عيسنا يولي إلها وحن كو حمديا بلا يبدا وأضومه سكود عدي قبد باديانيقا وانكي وان لبدا لغودنا هلكا كوغوان لبدا قعمودنا انتا كوغوان ان ان لهينو وحبا اركينين جرجيسنا waxa ku dhacday baras wada cad yahay waxaanu ku ducaysanaya uu leeyahay ilaaha waxa ku mahadiya balaaye badan oo adoomihiisa ku dhacday iga badbaadiyay baan ku mahadiyaa buu leeyahay nabiyullaahi ciisa alayhi salaam baa ku yiri oo adiga balaayada ka maqan ee dadka kale ku dhacday ilaahay ka magan galaysa maxay tahay buu yiri wuxuu yiri waxa weeyaan dad baa jira buu yiri qalbi bay leeyihiin qalbiga ilaahay kuma hayaan cabsidiisa iyo jacayladiisa carabna way leeyihiin carabkoogana ilaahay kuma xasuustaan ama aniga ilaahay wuxuu isiiyay qalban shaakiran walisaanan dhaakiran baa ilaahay isiiyay qalban shaakiran qalbi wuxuu ilaahay isiiyay mar walba mahadnaqaya iyo carab wuxuu ilaahay isiiyay dhaakira oo mar walba xuska ilaahay ku qoyan qofka qalbi la siiyay ee qalbigiisa ilaahay maanta aan ku hayn cabsidiisa maxabadiisa jacayladiisa aan ku hayn iyo qofka carab la siiyay ee carabkiisa ilaahay aan ku xasuusanayn
wax kale uu kaga sheekaysanaya miyayna balaaya ku dhicin buu yidhi haa way ku dhacday taasaan ilaahay ka magan galayaa buu yidhi ilaahay baan aniga taa iga ilaaliyey buu yidhi masiibada adduunyada ugu weyn ma taqaanaan waa dhimasho bal wax ka weyn ma jirtaa waxa adduunyada masaa'ib dadka bini aadamka ku dhacda hebel reer islaantii baa ka xanuunsatay waa masiibo aqalkii baa ka gubtay waa masiibo dalkii baa ka baaba'ay waa masiibo ilmihii baa ka waashay waa masiibo ganacsigii baaci mushtarkii baa dab ka qabsadoo ka baaba'ay waa masiibo imtixaankiibuu ku dhacay waa masiibo gaadhi baa la dhacay oo lug iyo gacan baa jabtay waa masiibo laakiin masaa'ibtaasoo dhan waa laga kacaa aqal baa ka gubtay aqal berri waa iska dhisan karaa ilmaa ka waashay ka kalea ilaahay uu caafimaadin karaa isagii baa lug ka jabtay lugta uu ka kami karaa tijaaraddii baa ka baaba'day tijaaradda uu ka soo kaban karaa xanuun baa ku dhacay waa iska daaweyn karaa laakiin uu dhintay ma ka soo kici karaa ma ka soo kici karaa idan masaa'ibta adduunyada taalla masiibada ugu weyn waa geeri aakhire marka la joogana masaa'ibta aakhirada taalla masiibada ugu yar waxay noqon doontaa dhimashada ahla naarka walciyaadu billaah allah inaga badbaadiya naarta amiin dhahada markii naarta ilaahay uu ku ekaysiiyey galaan waxa qur-aanka ilaahay uu noogaga warramay inay 40 sannadood malaga maalig la yidhaah ay u dhawaaqayaan maxay ku dhawaaqayaan wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk wanaadow yaa maaliku malik waa malaga furaha naaraha hayo weeyaan malagaas weligii ma qoslin baa la yidhi sidii loo abuuray shakalka lagu abuuray bilaa qosol ayuu ku taagan yahay baa la yidhi malagaasay u dhawaaqayaan 40 sannadood ay leeyihin yaa maalik liyaqdi calaynaa rabbuka rabbigaa waxaad naga gaadhsiisaa naftaba ha nagaga jaro waxay dhimashada u tamaninayaan waayo cadaabka iyo dhibaatada naarta ku dhex haysata ayaa ka weyn dhimashada afartan sano kadib ayuu u jawaabayaa uu leeyahay qaala innakum maakithuun dhimasho ma jirto weligiin iyo allihiin halkaa baad ku waaraysan ood ku jiraysaan buu leeyahy dhimasho way dhammaatay khalaas adhabtum طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون راحة ديني تمشى ديني جنة ديني حرية ديني الدون كاتكو سوق عادتين لحدن كي سنة أدوية أياد حقيقة مودين وحينكو سوق قديمتين وحن عذاب هين ما أنت مليه ديني هل كابد ولي كجري سامبوليه marka maanta adduunyaan joognaa baritol aakhiraan tagaynaa arinii maada qadamta lihada alyowm addoommaha ilaahay ka mida ilaahay calaa ru'uusi alkhalaa'iq buu kala soo dhex baxayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoon loo nicmeeyey buu ahaa markaasuu ilaahay qirsiinayaa nicamtii oo dhan uu leeyahay addoonkii hebel hebel ahaa ma tihid haa waa nahay addoonkaan u nicmeeyey ma tihid haa waa nahay addoonkan caafimaadka siiyey ma tihid haa waa nahay addoonkan awlaadda siiyey ma tihid haa waa nahay maalintan inay imanayso waan kuu sheegee arinii maadaa qadamta lihada alyowm waxaad maanta agtayda soo dhigatay hore u soo marsatay ee aakhiradaada kaaga soo horreeyey itus baa ilaahay ku odhan doonaa waaba addoon wax khayra haba yaraatay aakhiradiisa aan u qadiman weeyaan wixiisii adduunyadu ku soo isticmaalay caqligiisii adduunku uu isticmaalay dhallinyarnimadiisii adduunyadu ku isticmaalay xorriyaddiisii adduunyadu ku isticmaalay shahawaadkiisii adduunyada ayuu ku gutay intuu adduunyada joogay waxba xaaraanba kama ahaynba wixiisii halkan uu ku qadimtay khalaas markaasuu le yaa rabbi waa runta adaa ii abuurtay adaa arsaaqadda i siiyey awlaadda adiga ay siiyey adaa ii nicmeeyey adduunyadii aadin siisay baa i mashquulisay intaadin siisay iyadoo in ka badana
ayaan adduunyadii kaga imidee ilaahu dib ii celi han soo qaato han kula imaadee ma la soo qaadan karaa rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib maada yacmal فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بتعالى هذا مر لباد بوكو علن إلهي جل وعلا سواش جوابتي بو كان يا إلهي مركابو كسي جيسان يا يولي هاي خذوه قادبوا إلهي ورانيا ملائكتي دي ملائك زبانية الليلة أو جركوغو وكسمي سيهاي النار جركي سي قبنا يامو يوري ابن عباس ماشي قبطان بو يسوغو ايسا لفهيو هيكل ايا هرايا منا دمنا دمشو دمات كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب جركي مركو كدعبا جرك لا مركيب الله سو صاريا سو بخايا دمشنا ما جرتو markaasuu argagaxaya meeshii la qabtay way go'day gacanta la qabtay way go'day mid degtuu qabtay way go'day mid xaqan uu qabtay way go'day markaasuu ala tarxamuun malaa'iktii buu leeyahay madina xariisanayn waa sida naxariis ma lihidino markaasay oranayaan arhamur rahiimiin kiiba kuma naxariisane naxariisad naga sugaysa anaga maxay tahay khuduuhu faghulluuh ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه محل عذاب يعني إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما عرف حق المعرفة إلهي عظمتي سقلبي سمي قلن جنة نحرست إلهي بالله قلا ثم وحال لقو قلا إيمان نارته waxaa lagaga badbaadaa ilaahay naxariistiisa lagaga badbaadaa thumma waxaa lagaga badbaadaa waa iimaan meel loo baxsanayna ma jirto marka muddada yar aan adduunyada joogno waxaa laynoo keenay walaalayaal inaan fahmno weeyaan muslim dadka kale sidooda ha u fikirin adigu waad ka duwan tahay adigu إنك الجنة وآخرة ويان شهوات دينا الدنيا كو جودن كريمين إنكو الدنيا سجن المؤمن جيل بتكو جرتا جيل نيكا جيل كو جرا هم يجي سوا محي قور ما تكبح نيكا الله حري 5 سنة الله حري أما 8 سنة الله حري والعياذ بالله كسوقات هم يجي سوا محي قور ما تكبح جيلك قور كفكر مايو عيال جيسي كفكر مايو شقة كفكر مايو ضوف كفكر مايو هو الوالكيس وقوين وامحي إله ما شمرون كاسار لما دلين قدين لقى مجرين قعان لقى مقوين كلية وحال لقى قال حرية دوما لقى قبتي بس قفق الله حدا محال لقى حدا حال لقى حدا بلي شاقا حرية دوما لقى حدا عنتدي والله سين هو دي هايستا بيه هايستا waliba waxa la leeyahay iska naso kubadii baa la oranayaa ciyaar waliba diintii baad ku baran kartaa waxa soo dhan uma muuqdaan waxa u muuqda uun goorma jeelkan laga saariyo xorriyadaada lagu soo celin الدنيا سجن المؤمن وجنة سجن المؤمن ومؤمنك ومؤمنك waxau doono u eegayn waxau raba uu arki karayn waxay naftu doono ma dhageysan karo waxay naftu doonto ma cuni karo meesha naftu ay doonto ma geyn karo mar walba wuxuu leeyahay anu adoon ilaahay baan ahay ilaahay baan amarkiisa mar walba qaadanaya sida Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kharashka ayaa qulaamkiisii kharashka u keenayay ayaa cunto u keenay maalin markaas Abu Bakr cuntadii luqmad markuu ka baday ayaa qulaamkiisii baa ku yiri ya khalifata ya Abu Bakr awal waadi weydiin jirtay oran jirtay cuntada halkee ka keentay maanta waad iska cuntay hamaadi weydiisay markaasuu xageed ka keentay zaman jaahiligii dad aan u soo faaliyey fal oo mushqaayad aan ku lahaabaa maanta mushqaayadii isoo siiyeyo
cuntadana markaa mushqaayadii bay ka timid buu yidhi abubakarna markaa luqmad baa calooshiisa gaadhay fartuu afka geliyey abubakar sidiiq saasuu farta afka u geliyey markaa buu iska matajiyey haddana biyuu ka baday uu iska matajiyey haddana uu ku celiyey markaasaa lagu yidhi yaa abaabakar luqmaddii xaaraanta ahayd way kaa soo dhacdee joogso wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi hadday caloosha wax kaga hadhi lahaayeen oo ay diiddo inay soo baxdo naftoo la soo baxda mooyaane naftana waan la soo saari lahaa buu yidhi maanoo xadiidkii nabigeenna maqlay calayhi salaatu wasalaam kullu jismin nabata fi lxaraami fannaaru awlaa bihi naar jidh kasta oo naar ku kor jidh kasta oo xaaraan ku koro buu rasuulku yidhi naartaa u xaq loo cuni doonta maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay ayaa luqmad xaaraan caloosheeda ku haysan buu yidhi innaga zamankeenna halkan maraynaa waxaan ku cuninba gaajada unbaa xaaraana bay ku odhan soomaalidu iminka gaajada unbaa xaaraana gaajada xalaal mirad noqo ilaahay caabud calooshaada xor uma tihid oo maqalka xor uma tihid dhallinyaradu wax kasta iminka iska dhegaystaan haddii loo sheego la war waxaa diintu ma ogolaan wuxuu ku odhanayaa ma ikhtiyaarkaad naga qaadaysaan ikhtiyaar baan leenahay yaa ikhtiyaar baad leedahay kaa yidhi haddaad ikhtiyaar leedahay maxaad la dhiman maxaad la gaboobi maxaad la bukooni maxaad la daali maxaad la xanuunsan maxaad la murugoon maxaad la baahan tahay maxaad la buusbuusi maxaad musqusha u gali haddaad xor tahay musqushaa galna qormuunka kaa imanaya iska jooji ma joojin kartaa ma joojin karno kulligeen wada bulaacad socotaan nahay bulaacad socoto lugaynaysa u fiirsa musqusha markaan gallo kulligeen saasaan idhahnaa maxaa ka uraaya bal sheeg ma adhi iyo geel baa ku shubay meesha mise adaa dhigay waxaa halkaa ku jira halkan kugu jira adiga ilaahay baa ina asturay mooyaane nin walba halkaa waxa calooshiisa ku jira haddii carfiga caloosha ku jira urta bannaanka lagaaga soo saari lahaa ka warran sidee ummadda u dhex socon lahayd markaasay bini aadamku wax ismoodayaan ka warran wax ismoodayaan oo sanka taagayaan qarmuunka calooshaada ku jira oo keliya haddii naqaska kaarboonku dibadda kaaga soo bixi lahaa ka warran maxaa lagu odhan lahaa war kaniya maanta sii qarmuuna kana maanta war balorda musqusha gal baa odhan lahaa adu waxbaa kaa soo waraya ziyaadee ilaahay laakiin waa sataar u ina asturay عيبتني بو قريي يا من أظهر الجميل وستر علي القبيح ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام مركو إله إلا مناجونا يا من أظهر الجميل يا من أظهر الجميل إله قروح ذي بنانك أصو ساريو والله عيبتي نقصان تيدا أنيك هدادي وقال لها يدين إما دقيستين لكن سترق إلهي بان يقولها الله يا إن يكون سترق إلهي بان مسكيته كفر دان يا الرحمة إلهي شيخ يحيى بن معاذ بها محدثين تبوها تابعين مركو دنتي أيام منام بالغو أركب منام دتك ون وناكسنا ويسركين موقتها دتك إيمك دوف بيكون رياض دوف سوق بدي كتل أبو تلياني قالوا كل ريون مد مركزوا أنو والله وان أركانو يوروب قالوا واسيس عضايا سلامة والرياض هذا ركته من روم بعده وحي مسكح هذا كجرون بهابينك شيطان كوكاس ودح ساري دتي وناكسنا جنة أركيين وقيامها أركيين وإلهي وجهي سي أركيين علماء قاركود ركبة إلهي تدي سأركايا هابينك مركز استحضام ركبة هابين والبنبي محمد لكل ما عليه الصلاة والسلام يحيى بن معاذ بكمدها مركو جيري ودي أيام منام لقو أركول لقول يا شيخ يحيى ننع واعدة ومحدثة وزاهدة وأمد جعشها هذا هيدا ما فعل الله بك محاد ربك كلكلة نوشك بالقيدي مركز سوري فضحت والله فضح وكف فضح حضوب وكف فضح حضوب بنك قيامة وإلهي يقولي سوقبت يحيى كان والله هرجي يا إلهي مركز إلهي يقولي شيخا حن ما أنت عملك أكتيد الصوت دقتي إد سلادها وتكبت بهذا شيخ بالويدي بودي مركزان يا رب لحية صد حج
ayaan carafo joogsaday oo agtaada soo dhigtay markaasaa ilaahay igu yidhi midna kaamaan aqbalin sheeg camal kale markaasaan idhi yaa rabbi 63,000 oo khatma qur'aaniya ayaan soo khatiman wataa markaasaa lagu yidhi midna kaamaan aqbalin waan kugu soo celiyey sheeg wax kale markaasaan dhulka eegay markaasaan isiri dee camalkeen kaloo sheeganba labadii camale islahaa waad ugu rajo fiican tahay waa 36 xaju carafa istaagay iyo 63,000 oo khatmat alqur'aana intiiba markii laygu soo celiyey la yidhi lagaama aqbalin laygu yidhi ayaan madaxa ganoodiyey oo laygu yidhi welibana kor u taag madaxaago camalka aad agtayda soo dhigatay maanta aad leedahay waad ku badbaadaysaa itus markaasaan idhi yaa rabbi hee anu waxba ma wato waxba ma soo qaadan ba hee adigaan ku imid bas waxaan garanayay inaan u tagayo rab kariima ghafuura shakuur raxiim sataar xaliim latiif cafuwun ghafuur rabbiga sifaat kaale inaan la kulmaayo ayaan garanayo waxba ma watee yaa rabbi anigu adaan ku imid bas markaasaa ilaahay gu yidhi haddaad ii timidee waa kuu dembi dhaafee jannada gal markaa raxmadda ilaahay baan jannada ku galay dadka u sheegay buu yidhi hadday waa taabiciintii waa zuhaadii waa muxadisiintii waa salafu haadihi alumma xasan albasri maantaan akhrisanayay maanta xasan albasri wuxuu yidhi 30 sano ma qoslin 40 sanana hadal maa laa yacni oo kaftana kuma hadal buu yidhi inagu maalintii imse jeer baan kaftannaa imisaan caytamaynaa imisaan ummad xamanaynaa imisaan waxaan doonna eegaynaa imisaan waxaan doonna maqlaynaa laqad adraktu aqwaaman waxaan soo gaadhay aqwaam buuhi aqwaam waxaan soo gaadhay waa saxaabadii rasuulka raggaan ka soo gaadhay markaan la joogay waxaan ku dhex ahaa buu yidhi tuug baan ku dhex ahaa buuhi tuug waa xasan albasri baa hadalkaa leh ayna naxnu maanta halkeen joognaa maanta ilaahay hanu toobad keenno zaman adag baan ku jirnaa zaman adag muslimiinta waxun baa ka sii dhacaya muslimka maanta mar iyakii laysku diro mar iyaku ay iscaayaan iyo mar iyaku ay isdhammeeyaan waabaan ka sii xag jirnaa inakuna soomaali haddaan nahay wixii dalkeenna 40 sano ka horaan ku baabi'inay ayaa ilaa iminka dalkeenni iyo dadkeenni ka dhex socda qabyaalad soomaali diintiisu waa maxay waa qabyaalad waa ta halkaa ina dhigtay weeyaan waa ta ummadihii inaga reebtay weeyaan طريقة الوحيد طريقة كلية ما أنت أمد أي كبد باديسو وطريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام الرجوع إلى الدين لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها أمدا آخر كيكو ما يصلح حيثو إلا أول كيكو محكوها قاقي موياني أول كي أمدا محكوها قاقي يقين يزهد ما يمدكوها قاقتي آخر كي أمدا محكو فسادينا البخل وطول الأمل بخل إنه قفكو dhaqaalihiisii caqligiisii cilmigiisii wakhtigiisii uu kala baqay aakhiradiisii iyo diintiisii iyo inuu ku noolaado tuulul amal hidideela dheeri waan noolaan doonaa waan jiri doonaa waan gaadhi doonaa waan dhisi doonaa war waxaasi shaqadaada maahayna waxaa kaaga horraysa waan dhiman doonaa berri tola caawa gabalku ii dhici maayo aniga waa inaad tidhahdaa dariiqadaas rujuuc ila diin baa la rabaa ummadda in lagu soo celiyo maanta طريقة الوحيدة طريقة كلية أمدو أي دينتا كسو نغن كرتا أي أمدو دينتا كو قبسن كرتا ومعي وطريقة الدعوة والعلم لبدا أو ودا الصعدة أو كلا الصعدة معها لبدا سو ودا الصعدة أمدو كوبت بعدين كرنا مانتا إن المسلم كا داتك مسلمين تواوينا أي جوغنا إن دعوة كسو قبنو دعوة ومحي ummadda waxaan uga yeedhaynaa shirkigaan uga yeedhaynaa iimaankaan ugu yeedhaynaa khafladaan uga yeedhaynaa dikrigaan ugu yeedhaynaa jahligaan uga yeedhaynaa cilmigaan ugu yeedhaynaa dulmigaan uga yeedhaynaa ixsaanka iyo cadaaladaan uga yeedhaynaa assumcatu walriyaa baan uga yeedhaynaa ikhlaaskaan ugu yeedhaynaa dadaalka adduunyada ay ummaddu ay ku dhex dhacday ee dharaariya habeen adduunya laga fikirayo ayaan ka soo dhex qabanaynaa dadaalka diintaan ummadda ugu yeedhaynaa suuqaan uga yeedhaynaa masaajidaan ugu yeedhaynaa adduunyadaan uga yeedhaynaa
آخرة ugu yeedhayna jahaladu caamada iyo siyaasiyiinta iyo qabyaalis iyo casabiyiinta ay ku xidhan yihiin ayaan uga yeedhaynaa caamada waxaa leena kaalay culimada ku xidhma culimadaad ku daba liibaanaysaan هذا هو طريقة الدعوة إن الدين تفض دعوة أو صبابة إن الدين باقي نقطة علمك أو صبابة haddaan doonayno zamankan maanta aan joogno in dadka muslimiintuna masaajidda u soo noqdaan gaaladana intii ilaahay hidaayadda ugu talagalay ay soo hanuunto islaamnimaduna ay quwad yeelato haddaan doonayno waa inaan dacwadda ka shaqaynaa waa inaan ilaahay dartii maalkeenna nafteenna wakhtigeenna aan ku bixinaa dacwaddu waa maxay haddaan soo marnay dacwadda hadda maaha dacwatani tan waa wacdi weyn waa wacdi waa tadriis waa tacliim waa tadkiir dacwadu waxa weeyaan waa maqaaxiyihii imika jawladaan soo samaynayna magaxood baa maqaaxiya magacoogii shaah macaan dhallinyaradeenii oo aan warba u haynba qaarkood aakhiro inay aakhira jirtaba kama war hayaanba dacwad taasa leh dacwad waa taas miskiidka haddaad kitaab ka marinayso waa tacliim miskiidka haddaad muxaadaro ka jeedinayso waa tacliim miskiidka bayaanada ka jeedinayso waa tacliim dacwad waa maxay waa jawlaad inna laka fi nnahaari sabxan طawiila dabaal dheer baa ku ahataa nabiga lagu yidhi maalintii dabaal dheer aayaddu waa maki awaa'il الآيات التي أنزلت على المصطفى في حياة مكية في سورة المزمل ويان ما قال هذا مكبد ملئ بدأوا النبي قد احدى بالنا وابدي ومجتمع نيك اللغين يا برق اللغين يا نيك بد كده حجري الدبالنا يا اسكو صعد معها نيك برق اللغين يا حدو دالو عدو أي قبطو جيد هاد معان بو يغنو وكنا سن عدو مركا كجبتنا وسكا عرابي سو صدا معها والصير صير بلانك أو صعدا كبد كجري الدبالنا يا دباشا مركلي وجوجي كرا وامركو بدا كبحو هدو اسوغو بد وين تكجرا ودباش جوجي ما دعي ان لك في النهار صبحا صدح يلا با تسنه نبي لغو يري ددال وحا نبي لا سيو لا امري لغا عبري دبال حسيحن هنسن همرغو هفرحن هقسلن صحابتيسا كلكو لا جوغا ويدو لا عديني بس يدو لا عديني وقتي بانو دوما جزاك الله خير waxaa laga cabiray nabiga sallallahu alayhi wasallam dadaalkiisii dabaasha goormuu ka baxay maalintii sankaraadku qabtay ee faaduma ay tidhi waa karba abataah wuxuu yidhi laysa calaa abiiki karabun bacda alyowm yaa faaduma aabbaha maanta kurba iyo dhibaato ugu dambaysay buu yidhi khalaas baddii waan ka soo baxay weeyaan iminka khalaas ila arafiiq alaclaa إلى جنة الفردوس ما أنت يقدم بيسوي ودي دباتنا خلاص إنا حدان دونينا دعوة ولا ليال دتك إنا كود دلنا ويان حدان دونينا أجيال دتك صوص صعدة ما أنت علماء وافر كترس اختار دي علماء متكبدا إنجنير دي علماء سياسيين تي علماءنا سومالي دورت إلى كير با سياسي اسكدا wax kale ما دام علماء أي مجتمع ku yartahay waxaad ogaataa hoos baan u soconaa inta culimada rabbaaniyiinta ee ilaahay ku xidhan ee ummadda ilaahay xaqiisa u jeedinaysa ay nagu yartahay ee shariicada inoo haysa inta ay yar yihiin ee tiradoodu laga badan yahay hoos baan u soconaa ogaada waan indiraasaynaa ummaddu waxay ku noqotaa ummadnimo waa hadday cilmigeyga diinta haysata weeyaan labadaasaa markaa loo baahan yahay dacwad iyo tacliim in dacwaddana laga shaqeeyo oo ilaahay dartii loo baxo haddaan ilaahay dartii 40 u baxno iyo haddaan 2 bilood baxdo iyo haddaad 40 baxdo maxaad ka soo shaqaynaysaa ma taqaanaa naftaadaad islaaxinaysaa suudaan 2009kii magaalada la yidhaahdo saleym waa xadka u dhexeeya masar iyo suudaan ayaan joogay jamaacan la socday nin caalima ilaa imka ninka caalimka waan xasuustaa magaciisa sheekh saabir cali baa la odhan jiray
callaama khatiiba oo ilaahay uu siiyey quwata albalaaqa waalkalaam waalfasaaxa ayaan gurigiisa ku buuqday. maskiidku wuxuu qaadaa taqriiban ilaa 10,000 oo qof. markaasaa jamaacaddii maskiidkaan nagu tidhi yaa jamaacata jabuuti dhegaysta, masaajidkan 2 saaca subax uu buuxsami doonaa, balaas waa la kala waayi. hadda imika sii diyaar garooba, masaajidka alaabtiina meel dhigta, balaasa sii qabsada. sidee ninka khatiibka halkan waxaa looga yimaadaa 100 kilomitir baa khudbadiisa looga yimaadaa. haynoo geeyahan ziyaarane daa'iman jamaacadada tartiibta waxaa ka mid ah ma nazaluu fii manzil, hadday magaalo ama maskiid ku degaan laabudda waa inay sheekha caalimka ziyaartaan. gurigiisii baan ugu tegnay markaas, jamaaca kuu joogtaa la yidhoo soo gala buu naga yidhi. waan gallay, khudbad buu warqadar ku diyaarsanayay. waa khatiib weliba warqadda uu ku qortaa maahayna waa yani yakhtub biduuni alwaraqa. markaasuu nagu yidhi min ayna? markaasaan ku yidhi min jabuuti. uu yaabay, jabuuti? ha, dariiqeed soo marteen? waxaan ka yidhi waxaan soo marray jabuuti, sanca, khartuum ilaa iyo qaryadaada waxaan ku imanay bas. maxaad masaafada intaa leeg aad u soo gasheen buu yidhi, bal ii sheega. markaasaan idhi waxaan u soo gallay liislaaxi anfusina. maxaan u soo gallay? sheekh waxaan u socnaa baan ku idhi liislaaxi anfusina, uma buu yidhi walitadkiiri ikhwaanina, iyo dadka walaalaha iyo muslimiintan inaan soo baraarujinno oo soo ziyaaranno. uma waliixyaa'i juhda nebi calayh isalaatu wasalaam, dadaalkii nebi maxamed uu ummadda uga tegay dhaxalka ahaana ee ummaddu ay culummada ku weecisay dhaxalkii ee caamaduna adduunye u jeesatayna, inaan caamada u sheegno oon ku nidhaano dadaalka diinta ininkana caamay waa laynaga rabaa, culummada la shaqeeya oo garab culummada siiya. markaasuu yidhi kalaam cajiib, wax kale uma iman wax kale, intaa baan u soconnaa. wuxuu yidhi ayaa inaga dambeeya waxayna siiya. markaasaan idhi nin walba waa bimaalihi wa nafsihi. cajiib wuu kacay, sharaabkii buu noo dhigdhigay, kolkaana cabnay buu naga yidhi bas waa ni iman maskiidka iska socda. annagu waxaan leenahay ninkani su-aalaha siduu noo weydiiyey daqiiqa, talow khudbaddii dhannaydba bilow ka soo diyaari uun tabliiq. cajiib. mambarkii mar aliya markuu fuulay hadalkiisa waxuu ka bilaabay, jamaaca iigu timiday buu yidhi guriga. waxay igu yidhaahdeen, waxaan ku yidhi maxaad dalka u timaadeen? waxay igu yidhaahdeen waxaan u soconnaa islaaxa naftayada. waa taan annaku maanta aan ilowsannahay buu yidhi haddaan culummo nahay. ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. aayaddaa intuu qabtay buu saacad iyo badh buu ka dhigay khudbaddii jumcada. islaaxu nafs, nafta oo la islaaxiyaa waa fardu cayn calaa kulli muslim. 10,000 oo qof oo masjidka oo musalliina salaantooda bal ka bax waa kaase. 10,000 oo qof oo musalliintiiya salaaddii markii laga baxay aawe jamaacaddii waa kuwan salaan ummaddii oo dhan. waxaan ka wadaa war haddaad bax lagaa yidhahdo ilaahay dartii u bax, waxaad u baxaysaa islaaxa naftaada. waxaad soo baranaysaa fadhiga maskiidka. ayaan dhaweyto jamaacada 40 cisho oo noo soo noqotay jabuuti, anuu markaska jooga. ayaan ka yidhi war aad 40 maxaad ka soo faa'iidaan ka yidhi. mid baa yidhi sheekh anuu salaadiiba haddaan bilaabay buu yidhi. maalintii jamaacaddu xaafadda iga soo qaadeen baan salaadiiba ayaan bilaabay. adna maxaad ka faa'iiday baan ku nidho. kiina wuxuu yidhi anuu salaadda waan tukan jiree subaxa igu adka, salaadda subax baa igu adkayd buu yidhi. salaaddii subaxna hadda waan ii joogsato ima dhaafi doonta buu ilaahay idankii haddee toole. adna maxaad ka faa'iidaan yidhi dacwaddo. wuxuu yidhi anin qur-aanka igu adkaa buu yidhi. horta xifdigii qur-aanka waan bilaabay, juz camiya tabaarig baa soo dhameeyey buu yidhi. waxaana iga ballana buu yidhi maanta markaan sidaa u noqdo qur-aanka inaan xafidon cilmiga barto. halkaa markay marayso mid baa sii ooyey. markaas war bal aamus aduha ooyina maxaad soo faa'iido? waa la aamusiin kari waayey. markaa waan yaabnay, annakii baa la ooynaba. maxaa helay ninka ma xanuunsan yahay? amiirkii baan ugu yidhi may ma xanuunsanee u kaadiya. markaasaan maxaad la oydo, maxaad ka soo faa'iido? wuxuu yidhi anigu waxaan ahaa dhallinyarada mukhadaraadka isticmaala. mukhadaraadku waad garanaysaan baan u malayn, waxaan maanduuriyaha. hooyadayda i dhashay baan dharbaaxa habeenkii la dhici jiray buu yidhi. wixii baan hadda xasuusanayaa buu yidhi.
قف والبهلك وكبك ما كسو بوكسن مسك ما سو بوكسن هذا هو تغيير البيئة مددا بحلق ليها wax kala maaha بيئة غير وين بيئتنا تكون dhex jirto يربدل ده إن شاء الله هدي لنا قد البنا وانبحينا إن شاء الله ده هذا إن شاء الله ده هذا بس واحد لديهن مسكيت بري أنكو جوجنو أضيب عيديني ووعدي ناير مركو هريد وعدين إنسان بانو يردقي سنة لكن مركو الضمان كان نحنا بودي ومركبا نلو مركو قلق يبوك سوق على تاني لديهن يا إلهي درتو بحايا مركاسا كان نحنا بودي وعاني هذا يدقي سوا كود أدير نيكو مركو دخترك تقول سوق حمد أحسو جرن أيا وحلو سمايا إربد ninka dhakhtarku meesha uu ku mudaayo maxaa lagu sii sameeyaa suuf yaa alcohol yar lagu tuujiyaa waa qabow wana macaan irbadina way daba taala soo ma hadduu yidhahda ka warran suufkaa yar aniga iigu ekaysi ma bogsanaya maxaa la odhanayaa waar daawadu waxay ku jirtaa tee allah ina fahamsiiyo khayr baa inaga muuqda allah inii ziyaadiyo allah ina barakeeyo in sha allahu tacaala dadaalka diinta يا علمك يا دعوة إن كل من الصوديار منهن إن شاء الله جماعة هذا النيم هذا إن الله فريستان ودقي ستان ووقت جينا الله وحكسي سنة ديار ما ونهي دم بيجنا الله هداف دم بيجا والدين تنا الله هداف دين تا الله إنه معانيو مرل كنا الله شافيو ميتات كنا الله ونحرسته اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله